kismaayo 6 sanaad maamulaysan haddana waxaa jira cabashooyin iyo in la inku xanta ama la inku badanaaba aad tihiin dad yani inta badanba xataa aan xurriyadda ayna ka jirin oo qofka xurriyad ina siin ood cunaqabataysaan waxyaalahaas oo kale maxaa uga jawaabaysaa kismaayo xor looma ahan qofkii la rabo in lagu dilo oo miinadii la rabo la soo geliyo kismaayo yani looguma talagelin in miino la soo geliyo haddii aan ka hadalno kismaayo ama siyaasiyiintaba waxaa jira siyaasiyiin laga masaafriyey magaalada gudaheeda ama xildhibaanaha ahaadeen ama wariyaal xataa ha ku jireen kuwaas ma waxaad leedahay miinooyinkay keenaan waa un iska sheegid maahay haatan wax caddayn ah oo aan hayno qof inta la xirxiray diyaarad la saaray ma hayno deegaan baa lagaa soo doortay dadka deegaankaagii maxaad u qabatay adigu horta aniga lama soo dooran waa la magacaabay gado oo kale markii aan ka hadalno waxaa jira gadood bulsho oo dadka deegaanka adiga aad ka timaaday in yani Jubbaland ay dhaliilsan yihiin maxaad silaada waa ku dhaliilsan yihiin waxa weeye dadka jooga gobolka gado anigu hadda maalin way gabaarey baan tagay kacdoon bulsho kama jirin ardaalnimo abaabulan baa ka jirta gurigaygaa la yimid oo la dhagaxyeeyey meelihii lacagta laga soo diray baan garanaynaa duqaymihii ka dhacay gado waxaa jiray xarumo lagu jijibiyey goobo ganacsi sida tusaaloo kale hormuud oo kale ma inkaga qorshaysan tahay Jubbaland ahaan in aad xarumahaasi aad dhistaan dadka waxyeeladu soo gaadhayna aad magdhow u samaysaan adinka ahaan shacab ma nimankaas nimanka Soomaaliya ugu xoolo badan way warmurtiyeedka inta badan soo saartaan bulshada Soomaaliyeed way ka xanaaqdaa marka sabab u noqon kara mid gundhig u ah xal runtii maba akhriyaanba inta badan dadku caamo way run baan ku sheegayaa waa loo sheegaa wixii jira dad baan u sheego mushaarooyin ku bixiya oo kartuunistayaal iyo amiin caamire iyo lacag ku siiyay runtu laakiin runta way warmurtiyeedka aan soo saaray dalkani inuu wada jiro way dadka Soomaaliyeed oo way xanaaqaan aad leedahayna waxa weeye kuwa amnigooda aan u dagaalamayno way in la sugo kuwa aan ka xunaa in jaamacadaha lagu laayo way kuwa aan ka xunahay qofkii la rabo in la dilo ayadoo la iska duubahayo ninna kaamara uu wato midna uu xabadii ku dhufanayo kuwa aan ka xunahay way adinka waxa la inku xantaa Jubbaland markii hadda aan ka hadalna kaamirooyinkan iyo yani dadkan Muqdisho kala ka hadlaysa Soomaa adinka waxa la inku xantaa inaad gacan saar leedin shabaab maxaa ka jira shabaab xiriir lama leeyin annaga hadda ma dhaxayno wasiir walba ama xildhibaan walba ama siyaasi walba wuxuu ka soo jeedaa deegaan adiga dadka deegaankaaga maxaad u qabatay horta meesha aan ka soo jeedana waa Jubbaland oo cidina yaana gaar ii tirsan ani Jubbaland baan ka soo jeedaa ayadaaba igu yar oo xiriiri igu ah marka qofna yuusan khaanad kale ila raadin macnaha waxaad ka xanaaqsantaa daqarkii lagu geystay miyaa deegaanadaas gado oo kale maya horta waxa weeye waxaad ogaanaysaa aniga Jubbaland baan wasiir u ahay laakiin dadkaasna wasiir baa u tahay maya Jubbaland baan wasiir u ahay gado wasiir uma timiyaa dadka degmooyinka Jubbaland wasiir gada ma yahay aniga taa ku khaldamay wasiir Jubbaland baan ahay la imana doorta aniga waa la magacaabay dad badan baa waxay yiraahdaan meesha laga soo doorto bay dhahan aniga lama doorto lagu magacaabayay doorashada waan iska deeyn markii lagu magacaabayay adiga waxa lagu magacaabay yani siyaasadda Soomaaliya ama waxa ka jira waa ogna waxa lagu magacaabay inaad wasiir ka noqotid ama wasiir u noqotid dadka deegaankaas aad ka timid oo kursigaas lagu qancinayo kursigaas aad haysid maya saas ma wasiir baa la iga dhigay horta wasiirka la iga dhigay wasiir Jubbaland waa Jubbaland timaaday ahaan laguma soo xulanba maya ha waliga ha u malaynaday aniga odayaalka dadka keeneen kuma jirin